magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa muddooyinkii u dambeeyay ku soo badanaya goobaha lagu caweeyo iyadoo qeybaha kala duwan ee bulshada gaar ahaan dhalinyarada ay ku waqti qaataan xilliyada habeenkii. Nabadgelyada ka jirta magaalada Kismaayo ayaa keentay in bulshada ay si nabad ah ugu caweeyaan magaalada, waxaana dhalinyaradu ay ilaa saqda dhexe habeenkii ay ku gaaraan goobaha caweyska. Ganacsatada ayaa ku dhiiratay in ilaa saqdi dhexe ay ku dhex ganacsadaan magaalada iyagoo aan qabin wax cabsi ah oo xilligii ay rabaan meheradahooda xiri karaan. Qaar ka mid ah bulshada magaalada Kismaayo oo Jubbaland TV la hadlay ayaa ka warbixiyay sida ay magaalada ugu caweeyaan iyagoo dhanka kale u mahadceliyay laamaha ammaanka oo suurageliyay in dadku ay nabad ku caweeyaan. Bismillah, magacayga waa Jaamac Saciid, waxaan deganahay Qurbaha, laakiin magaalada marwalba ay maadaan sanad walba. magaalada runtii wax badan lagu soo kordhiyay. meesha hadda taagana waxa la Janeero, waxa isku dhamaan dhalinyarada reer Kismaayo waxay aad iyo aad u farxad gelinaysaa dhammaan dadka maqan in magaalada amni ay tahay oo waqtigan aan joogno 5 saac bar dhalinyarada maaragtay ku joogno ku wada caweeyno meeshan. magaalada ganacsigeeda aad u fiican yahay runtii, nin walba maaragtay amni helo ganacsiga uu keen doona insha Allah. waxaan aad ugu faraxsanahay maalmaha qaar oo maaragtay fasaxyada ay jiraan sida Jumcaha iyo Sabtiga, Jumcaha iyo Khamiista in dhalinyarada banaanka ay wada imaadaan oo ilaa iyo 8 saac ilaa 7 saac habeenimo meeshan ku wada caweeyno. waxaan ku daawanaa ciyaarihii, waxaan ku ciyaarnaa maaragtay boolkii, waxyaalo badan oo maaragtay runtii farxad badan oo dhalinyarada ay ka dareemaan meeshan lagu sameeyaa. marka waxaan soo dhaweynayaa runtii horumarka magaalada ka socdo. dhammaan dhalinyarada waxaan leeyahay insha Allah aan isgarab qabsano magaalada amnigeedana waa arkaysiin si fiican maaragtay walba u socotaa. bismillah, magacaygu waa Abshir Yusuf Maxamed, waxaan ka tirsanahay dhalinyarada magaalada Kismaayo oo aan ku dhawahay TV-ga Jubbaland oo caawan ugu soo booqday xarunta madadaalada ee Janeero. runtii ganacsatada Soomaaliyeed waxay aad ugu amaanan yihiin gaar ahaan dhalinyarada xaruntan fuliyay in ganacsigii ay kor u qaadaan, dhalinyarada goob ay isugu imaadaan oo ay ku caweeyaan. runtii magaalada waaga hore inta badan kama jirin, waxaa laga yaabaa in hoteelo waaweyn oo laga yaabo dadka qaarkood inaysan ka bixi karin oo loogu talagalay siyaasiyiinta iyo odayaasha iyo inay magaalada ka furnaayeen, laakiin goob dhalinyaro ah oo dhalinyarada isugu imaadaan oo ay ku caweeyaan oo ay ku madadaaliyaan arrimaha sportiska qaarkood ay ku falanqeeyaan. gaar ahaan inta dhalinyarada imaad waxaa ugu badan bahda sportiska, marka in lagu falanqeeyo mararka qaarkood ciyaaraha si guud oo wada jir ah loogu daawado ciyaaraha adag ee Premier League iyo kuwa guud ahaan ee ka socda adduunka. marka goob dhalinyarada ku caweeyaan ku shaaheeyaan. walaal Janeero waa meel aad iyo aad dhalinyaradu ugu baahnaayeen, waana ku faraxsanahay maadaama Kismaayo laga furo meel dhalinyarada ay ku caweysinto. waa meel lagu ciyaaro laanduuga, maxaa ahaay buulka, turubka. waa meel aad iyo aad u fiican. ganacsatada waxaan odhan lahaa meelo badan meeshan iyo meelo kasii badan ka furo. كل حرنتان وحرون في عن مقالدنا وبهنيد إن لجوس كرديو صوتها مقالدة وحين entertainment مجرين حرنتان لأن يرضى الناس سوي ماتا حلقوا عيارة كل دون عيارة دون كانوا ولا قدا ولا عدي بريم ليك تاي عدي جامبيون تاي وحرون ذلك لأن يرضى وبهناين هذا لأن يرضى يستحقل كودي إيو هذا وفعل ما شاء الله عبين كل وعوية ولا سوي ماذا لأن يرضى يكون في سن. وما سنتي جبنا TV سود هذا أنا مقعي صادق على ده مقالنا حبذنا كبد الشيء ومال entertainment لأن يرضى سوي ماتو sida dhalinyarada ku xifaaltanto meel ciyaaraha laga daawado oo bulshada Kismaayo iskugu imaadaan way lagu dheelaa PlayStation-ka sida ciyaaraha lagu daawada balandhuuna lagu dheelaa meel ay dhalinyarada meel entertainment oo iskugu imaado habeenkii la isku cabeeyo dhalinyarada ay ku xifaaltanto meel noocan magaalada laga furna aad iyo aad u soo dhaweynaa. bismillahir rahmaanir rahiim. magacaygu waa Siyaad Maxamed Dool, Jubbaland TV waa ku dhawahay, waxaana kamid ah dhalinyarada reer Kismaayo ee ku caysinta halkan Janeero. run ahaantii aad iyo aad ugu faraxnay aniga haddaan dhalinyarada horeyna uma jirin meel ay dhalinyarada habeenkii isugu imaadaan. goobtan waxay leedahay qeybo badan, waxaana lagu dheelo waxaana kamid ah qeyb lagu dheelo laanduuga iyo maaragtay turubka iyo qeybo badan ay leedahay, waa lagu cayeysimi karaa. Axmed Cabdullaahi Axmed, maamulaha xarunta ee Janeero oo kamid ah goobaha lagu caweeyay ee ku yaala magaalada Kismaayo ayaa sheegay in xilliyada habeenkii ay ku shaqeystaan u suuragelisay in nabadgelyada ka jirta Kismaayo. TV-ga Jubbaland waa ku dhawahay, magacaygu waa Axmed Cabdullaahi Axmed. xaruntan waxaan aasaasnay bishii 11 sanadkii hadda la soo dhaafay. xaruntan waxay xarumaha kale ugu duwan tahay oo ganacsiga waa goob lagu talagalay dhalinyarada inay ku caweeyaan waqtigooda ku qaataan ay ka helaan waxyaabihii kala duwanaa oo entertainment-iga ahaa
sida PlayStation-ka iyo laandhuuga iyo dubladda goob ciyaaraha lagu daawado cashadii fuudeed iyo wax walba cuntadii buulkii marka xaruntan waa xarun dhalinyaro lagu talagalay habeenkii waxay ugu dhaliyay inaan gaarno ilaa iyo 2 fiidnimo ama 8 saac weynimo qof walba u yaqaano magaalada nabad ay ka jirto dhalinyaradii u baahan goobi ay ku caawin lahaayeen ciyaarihii oo xilli dambe ay daawanayaan buulkii laandhuugi isku kuleysanayaan marka waa goob dhalinyarada iyo magaalada ay u baahaneed oo xilli munaasab aan ku soo kordhiyay ila tahay insha Allah waan rajeynayaa inaan 2geeda iyo 3geedana aan ka hirgeliyo Jubbaland dhexdeeda ganacsigan waa ganacsi aan hore Jubbaland uga jirin hindisaheedana aan ka soo hindisay magaalada Xamar oo xarumaha kale ku yaalaan marka arkay magaaladeedii baahida ka jirto dhalinyaradii meel ku caawiyaan aysan lahayn meel waqtigooda ku qaataan oo ciyaaraha ku daawadaan oo aysan waxyaabahaas kale aysan lahayn inaan ku soo kordhiyo magaaladii qaabkaasana ugu fikiray inaan magaaladeedii wax cusub keeno goobaha ganacsiga iskugu yimaadaan dhalinyarada ayaa ka qayb qaadanaya isdhexgalka bulshada iyo amniga ayaan Yuusuf Kaariye Jubbaland TV magaalada Kismaayo.